caan ah waa ninka kaliya Falastiin ugu jira Hollywood uga caansan. واكو سلامي ماثي طبعا فيديو كان اتسوق لسي واكو محسن تاي waxaa la yaaban tahay mid kan rapper oo singer oo DJ Khalid muxuu uga hadli waayay arinta Falastiin muxuu falanqeyn waayay horta waxaad ka hadlaysaa walaal qof yani مثلا heesa ama dance gareeya oo power lahayn siyaasad ama حتى economic markii yiraahdo I don't know businessman yani way adag tahay in lagu sheego qof heesa yani wadamada qarbiga especially marka Mareykanka laga hadlayo ama North American ama South American ama meesha loo yaqaan Latinos qowmiyadaha Carabta min zaman bay u soo qaxeen yani qaar baa waxay joogaan more than 200 sano qaar baa waxay joogaan dagaalkii adduunka koobaad bay baxeen soo jaaliyadaha Carabta baxday waxa u badan jaaliyada uu ninkan ka dhashay oo Falastiin waxa ku jiro kale Suuri Lubnaan Ciraaqi dadka waxa u badan oo bilaad Shaam u badnaayeen oo barigaas baxay حتى waxa jirada ka hor maqaal aan akhrinayay oo Lubnaanti ugu horeysay oo gashay Canada for example inay ku dhowdahay 200 sano intay joogaan waxa sawir baa jira nin business يعني furtay ugu horeeyo dameer korkiisa wax ku iibinaya ama ku gadayay soo ayaga min zaman bay joogaan taas waxa ka sii daran power bay ku leeyihiin westernka waxay fadhiyaan baarlamaanka Canada jabooyin fiican wasaaraday haystaan waxay haystaan oo kale Congress-ka Mareykan waa la jooga Carab badan baa ku jirta Congress Mareykan gobollo waxaa jirta xataa iyagu ay maayar ka yihiin Europe-tan xataa EU-da way ku jiraan baarlamaanada way ku jiraan dad xataa hadda ka dib yimid oo cusub oo ku jira way jiraan oo galay xataa ha u badnaadaan haday rabaan Falastiinta dhibta jirta waxa horta anaka Soomaaliya nahay anaku wadamadan westernka waa ku cusubnahay almost 30 sano ilaa 40 sano way haday u badato laakiin dadka Carabta way naga horeeyeen dhibaatada jirta waxa weeye ayagu xataa markii jabooyin waaweyn gaaraan ama markii xataa milyaneer noqdaan ama lacag yeeshaan dhinacyada siyaasiga ra'yigooda kama dhibtaan ama ma jecla xataa day siyaasad ku jiraan siyaasadda Middle East ama wadamada caalamka Carabta ama islaamka inay ka hadlaan laakiin في المقابل waxa arkaysaa siyaasiga Soomaaliga oo cusub oo aslan wadanka ma ku dhalan oo first generation oo ilmihiisa laga yaabaa inay generation koobaad oo sii noqdaan asaga waxa arkaysaa hadlaya xanaaqsan lacag u aruurinaya wixii falanqeynaya kiina dhibta haystay wadankiisa saa loo sameeyay wuuba fadhiya Congress-ka Mareykan ama wuxuu fadhiyaa jagooyin kale ma hadlayo he don't care حتى أنا قاعدة for example هل كان هذا برلمان مثلا يوروب تان ودمنا أتشوفنه ضد بدر واحد for example سوريين أو تشوجا ما كهذا لا ما هالسوري عند مرة اللي بعتذر بدك هذا كرعي مثلا ومضوضان مثلا وحيالة بدن باتشر مركب ضد كانوا حسوق قاعدي حق السياسة مركب تهاي سياسة منافعات يعني مثلا أيوة as الشخصي ama ayagu horumar ayaga sameeysanayaan inay tahay oo ayagu they don't care about مثلا jaaliyadooda ama dadkooda waxyaalo waaweyn uma qabtaan xataa markay tahay arimaha banaanka asoo power qofkii leh xogaa uu ka baqaya inuu meelahaas galo يعني dadka hadda dhow soo qaxay مثلا for example Carabta hadda oo last maybe 10 years ama 20 years yimid qaarba xataa 6 sano jooga anagu waxaan u karnaa wadamada ka yimaadeen baa wuxuu ahaa xogaa dictator يعني wadamo waxay dadka lagu cadaabo lagu dilo qofkii hadla aakhira loo tooraya waxa laga yaabaa baqdintaas bay la soo qaxeen oo la haajireen that's why حتى wadamada aan joogno badankood siyaasadda ma galaan يعني صحيح dad baa ugu jiray laakiin dadka saxiix ma hadlaan iyaga laftirkooda dhinaca siyaasadda uma badna because ayagu still waxa ku maqan baqdintii waxa ku maqan يعني inay hadli karin mar walba xishto waxyaalo badan ay ka baqayaan حتى jagooyin gaaraan ama jago weyn ama jago dhexe so ما في يعني بصراحة أنا أقول first of all مركان يوروب إمد والله يابي لكن هذا وين وهذا background تجا إنه وحياة بدن واحد شرتها
ayagu care weyn ugu fadhin. So that's why ninka hadda waa nin iska heesa powerful weyn male laga yaaba xataa in lala hadlay oo yiraahdo isqaajisid ama hadashid yani saasa ku dhacaya حتى قفك مركو ملايين بنكيدا ugu jirto lacagtiisa freezing baa lagu sameyn karaa because adigu si kasta milyaneer u tahay adigu lacagtaada oo dhan ma aha guriye gaar inaad ku gadatay absolute bankiyada way kugu jirtaa bankiyada marka taa laga xiro halkee tagaysaa xafladaha waaweyn hataa looga yeerin muxuu ka macaashaya soo asaga waxa jirta waxyaalo qofka oo lagu sameeyo handadaad ama cunto qabateen steep ma sameyn karo so ilaahay bay horta leedahay qadiyadaas macna ma leh insha Allah ilaahayna faraj u furaya. Maksala.